deegaano ka tirsan gobolka Togdheer ayaa la gaarsiiyay deeq raashin oo ka mid ahayd gurmadka abaaraha. Mas'uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in deeqdaas ay gaarsiiyeen deegaano dhowr oo ka tirsan deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Togdheer. Warbixin ku saabsan waxaa magaalada Burco inooga soo diray wariyaheena Xabiib Ciga Xasan. hay-adda Haro ayaa deeq raashin iyo biyo isugu jirta oo ay soo diraan wadaadada waqooyiga Ameerika soo gaarsiiyay dadka abaaruhu soo barakiciyeen ee ku nool deegaanada Og, Badweyn iyo Balambaal ee ka tirsan gobolka Sanaag. deeqdan isugu jirta raashin iyo biyo way manfaacadsadeen qoysas ka badan 200 oo qoys ayaa waxa ka hadlay wakiilka hay-adda Haro Siciid Mira Guure oo faahfaahiyay cidda deeqdani u soo dhiibtay iyo dadka abaaraysan ee ay gaarsiiyeen. halkan oo ah goobihii ay ka bilaabantay abaartu ee gobolka Sanaag ugu xumaa aragtaan inay kaam tahay dadka jooga hooyooyin iyo caruur ay waayeel ay taag daran yihiin. ilaahay mahadi waxa noo suurtagal shan raashinka soo gaarsiino iyo biyaha waa lagu shubana shirkaan iyo caagad bay u gaadhay 2 boqol biyaha iyo 80 qoys raashikood baan u keenay. qoyskan waxaan ugu talagalay haab aan u keen soo gaarsiinay haaf bariis iyo haaf daqiiq haaf sankora caagad saliid iyo kiilo shaah madow sidoo kale guudaan raashinkan wadin 200 qoys buu ahaa 350 qoys waxaan ku soo bixinay magaalada Og ee gobolka Saraar 67 qoys waxaan ku soo bixinay magaalada Badweyn 80 qoysna waxaan ku bixinay magaalada Balambaal. runtii waxaan u mahadnaqayaa hay-adda Haro hawshan soo faasirtay garaysay. waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa imaamiyada waqooyiga Ameerika sidoo kalena gudoomiyayaasha deegaanadaasi iyo qaar ka mid ah dadka abaaraysan ee la gaarsiiyay deeqdaasi ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyay hay-adda Haro iyo wadaadada waqooyiga Ameerika ee ku soo taakuleeyay deeqdaasi. marka hore iimaanada soo bixiyay raashinka dadka agoonta ugu deeqay waan u mahad celinaynaa ilaahayna jisaayogeeda hayn siibaanu leenahay. iyadana waxaan u mahad celinaynaa hay-adda Haro oo waday oo raashinkana soo gaarsiisay. waxaan u mahad celinaynaa qoladan hadeerna soo gaarsiisay ee uu ka mid yahay. waxaa la soo gaaray maanta sida la sheegay raashin iyo 2 boqol biyo iyo raashin gaaraya ilaa 80 qoys raashinkood. waxaan leenahay oo aad ugu mahad celinaynaa runtii dadka soo bixiyay ururka imaamiyada midowga waqooyiga Ameerika. tasaakum la khair baan leenahay iyo hay'adda Haro oo soo gaarsiisay waxay taabatay baahidani meeshii ugu haboonayd ay runtii taabatay. waad arkaysaan sida ka muuqata ilaahay baa mahad iska leh rabbiga caalamka ah yaaniga magaraysa ilaaha qaadirka ah yaaniga mahad iska leh. waxaa kaloo adeelaba ku rooyay aanu mahadnaqaynaa adeelaba ku rooyay dadka muuminiinta ee adeelaba ku rooyay noogu soo deeqay dadkan ugu soo deeqay masaakiinta raashinkan saaka soo gaarsiisay hay-adda Haro. marka waxa weeyaan hay-addaas yaaniga maartay soo gaarsiisay iyo kuwa soo bixiyayba ilaahay yaaniga magaraysa ajri iyo xasanaad iyo khayr Allah ka siiyo. walaalahana waxaan ka sii codsanaynaa adeelaba ku rooyay dadaalka iyo dadaalka fiican bad in la isu galo. annagu waxaan nahay dad reer miyi ah oo baraka ah oo abaarta halkii ay ka bilaabatay joogo sidaa darteed biyo iyo raashin midna ma aanan haysanin. sharaf iyo mahadna waan u celinaynaa wadaadada raashinka noo soo dhiibay. hadeerna waxaana loo keenay raashin 200 oo qoys ayaanu nahay. maxay ahayd biyana waana loo keenay. waxaanuna jecelnahay in loo soo kordhiyo biyo iyo baadba. Xabiib Ciga Xasan, Universal